Soomaali badbaadi karaa dhahna marka waxaan ana Soomaali badbaadi karaa saraakiisha ugu dhow Maxamed Siyaad Barre oo qabiilkiisa ah markaan ayaa hadalka badbaadi kara wax kaloo Soomaali badbaadi kara ma jirto dagaalkan hadda jabhadaha ana dalka waa dumi kariyaa dhibaato waa ka dhici kartaa laakiin xal inuu keeno way adagtaa waxaa fiicnaan lahayd marka odaga Maxamed Siyaad Barre ma saraakiil dhalinyaro ah yiraahdo odaga waa xanuunsan yahay inta qabta isbitaal geliya maaragtay yiraahdo raala ah yiraahdo asagana dhibaato loo geysanin ka bacdina la yiraahdo dalka Soomaaliyeed marka dib ha loo tashado hal cusboonaysiiyo marka dawladnimada dhismaheedii oo jabhadihii iyo wixii xanaaqsan la soo celiyo dad samay kara ayaa runtii ayaan fikirkeeda ku dhisnaa dadka markay yiraahdaan waxa say loogu sheegay hadda nimankaas waa niman madaxweynaha qaraabo la ah asagana taageersan say loogu sheegayaa kulankiina may ka soo baxayaan aragtidaasi fikirka yaa samay kara markii la yiri waxayna aniga sameynaa aniga marka waxa waaye badanaa saaxiib Allah mugtahay marka wax absi ani ma ugu jirtaa marka waxaan ku aansada marka inaan bal shakhsiyaadka dhaqayna qaar badan oo kamid ah inaan la hadlo si dalku badbaado marka ragga qaar kamid ahaan balansanayaa waa la fadhiisanayaa meel gooniyan tagaynaa waxaan u sheegayaa qasada waxaan dhahayaa niyahow xaajada waa xun tahay dalku waa khariban yahay dalka Soomaaliya waa burburayaa hadduu burburo Soomaaliya baa dowladda ka halaabaysaa dadka ugu badan wax khasaare ka soo gaarsan qabiilka dadka dhalateen waa madaxweynuhu ka dhashay dalku burburo waxaa la ka rabaa inta goor tahay idinka madaxweynaha u dhawey tashatiin niyahow odagaan waxaad yeelaysiin si odagaan waa isaguna waa da'i midana wax soo xukumaayay odaga inta qolku xirtiin waxa tiraahdaa odaga waa jiran yahay alaab lagu dirro oo xabad la isku qaatay waxaas loo baahna maaragtay si farsamo ah arinta ma xal kartin nin kasta wuxuu leeyahay dhowr nin la hadlay oo aan is ogeyn ayukuba isma ogaan nin kasta markuu wuxuu warniyo odaga loo ma dhawaa karo odaga khatar ah waay ama daba suudiisa haato waxaba ciidamada ku wareegsan haatay odaga ruux dhawaa kara haba yaraatay ma jirto marka inaysan marka dhalinyarada saraakiisha ee saaxiibada la ahaaya qabiilkiisa ahaaya madaxweynaha u dhawaa inaysan wax talaaba aysan ka qaadi karin waa cadaatay soo ma cadaanin oo isbedel laga samay karin jabhadihiina waa qariibaanayaan aniga marka maalinta ka dambaysa waxaan ka soo niyad jabaayay dadka la kulantay intaadan ka gudbin oo miyaysan qoyska madaxweynaha iyo kuwa aad ugu dhow ahayn farda gaarsiinka way ahaayeen laakiin aniga ayakana kama cabsan oo waan ku kalsoonaa inaysan hadda hadday xataa sheeko timaadana labadana keliya dhahin mogta markhaati male ma arbaabi karnaa dadka la sheegi kara ma qaar waa dhinteen intooda badan waaba dhinteen baan ilaahay u naxariisto